juhdiga guddiga xeerasaadka waxaanu soo istaagay keliya waxaa la yidhi geed way hoos yaalla guba qof waliba waxa uu garanayo inuu ka hadlo ama uu ka shaqeeyo habboon waxaan rabaa qodobka 4 iyo 5 ee xeerasaadka inkastoo aan si fiican loo fahmin qoraalka iyo warqaduhu siday u qoran yihiin waxaan rabaa habka amniga golaha waa beejka 5 waa beejka 4 iyo 5 waxaan rabaa horta inaan u sheego xildhibaanada golaha shacabka qatarada amni ee dalka oo hadda ku jiro muddana uu ku soo jiray waxaa loo baahan yahay wax waliba dalkan ku cusub in wax laga barto iyadoo wax laga baran in xaaladaas laga gudbo oo laga aboon yahay waxaan rabaa inaan xildhibaanada u sheego guddiga iyo guddoonka aan xasuusiyo in baarlamaanka qatarada faraha badan ee jirta iyo in maalin dhaweed markii la dooday anigu waa maqnaa oo waxaan ku maqnahay difaacyada waxaan rabaa inaan sheego siday aniga la tahay in qatarada baarlamaanku inay aada u sarreyso taasoo keenaysa in guddoonka golaha iyo xarunta golaha shacabka dadka laga beddelay iyo dadka la keenay iyo si guudba waxaan isleeyahay baarlamaanku waxaa si guud ku habboon uun ahaa jiray in dad loo tababaro looguna talagalay inay ilaaliyaan xasaanadda iyo sharafta xildhibaanada iyo baarlamaanka loo tababaray si ay ula dhaqmayaan in la keeno xildhibaano kale tan kale haddii ay jiraan xildhibaano laga shakisan yahay iyo hadday jiraan dad wata dad laga shaki karo in sharafta iyo karaamada xildhibaanada loo dilo waa wax laga fiican yahay waxaan u baahannahay in dadka tusaale yar markaa soo qaato annaga gaadiidka aan wadanay iyo ciidanka aan wadanay bannaanka nagala soo reebay waxaa laga yaabaa hub iyo gaadiid gudaha baarlamaanka ku jiro inaan dareemayno inaan khatar ka dareemayno khatartaasoo aan ahayn mid ama qofkaas laga qabi karo mas-uulkaas laakiin khatartii dalkaanu lahaa iyo dadkaanu ay lahaayeen inay soo geli karto si sahlana ku soo geli karto xarunta golaha sidaas awgeed waxaan soo jeedi lahaa in cid kasta ee gudaha xarunta soo gelayso ama cid kasta ee la shaqaynaysa guddoonka iyo xarunta ka shaqaynayso in marka hore lasoo hubiyo oo cid aan laga warqabin inaysan kana shaqayn lanaysan shaqayn guddoonka iyo madaxda ugu sarreysa dalka sidaasaan amniguna ku hagaagi karaa annagana ku dareemi karnaa kalsooni sidaas awgeed iyadoo la fiirinayo qodobka 4 iyo qodobka 5 ee xeerasaadka intaas dib loogu noqdo oo guddoonka naftigiisa dadka waardiyeynayo in dib loogu laabto iyaguna ay dib isugu laabtaan xildhibaanaduna waxaan isleeyahay xaq ay u leeyihiin in 275 mudane iyo xaruntii golaha shacabka ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya dadka ka shaqaynayo iyo dadka soo gelaya in la hubiyo way fiican tahay waxaan leeyahay marka qatarada dalka iyo tan golaha shacabkuba aad ay u sarreysaa guddiga iyo guddoonku inay dib u eegaan aan u baahannahay. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.